kaalmadan oo ahayd xoolo nool ayaa waxaa loogu talagalay in ay cad iyo dux ka dhigtaan maxaabiista xabsigaasi ku xidhan waxaana caawimadaasi geysatay Khadiija Axmed Yoonis oo ka mid ahayd dhalinyaradii amaba se ardaydii magaalada Burco dhagax tuurka iyo mudaharaadka kala hortagtay keligii taliskii Maxamed Siyaad Barre haddaba Khadiija maanta waa qurba joog waxaana xusiya xasuusba u ah in ay booqato xabsigaasi lagu xidhay yaraanteedii iyadoo Khadiija tilmaantayna inay ka qayb qaadanayso guud ahaanba dibudhiskiisa maadaama ay ku soo beegantay xilli dayactir iyo dibudhis balaaran lagu wado xabsiga guud ee magaalada Burco anigoo magacaygu yahay Khadiija Axmed Yoonis jeelkan xasuus gaar buu aniga leeyahay xasuuskaas oo ah maxaa la yiraahdaa inaan ahayn dhalinyaradii maxaa la yiraahdaa lagu xidhay dhagax tuurkii 1982 maxaa heeday xasuus gaar ah ayuu aad igu leeyahay aniga iyo maxaa heeday intii nagu xidhnaydba waxaan doonayaa inaan maxaa heeday ka qayb qaato maxaa heeday dibadhiskiisa maxaa heeday aad baan ugu faraxsanahay inaan meeshan ku xidhnaa anigoo gabar yar ah anigoo islaan inaan imaado maxaa heeday oo xorriyad haysta wadankayga maxaa heeday xor yahay waxaan ku wareejinayaa deeqdan oo ariya 9 ariya ayaan ku wareejinayaa jeelka anigoo maxaa heeday dalkayga dadkayga jecel munaasabada kaalmadan ariga ahayd lagu wareejinayay oo ka dhacday gudaha xabsiga guud ee magaalada Burco ayaa waxa goobjoog ka ahaa madaxda gobolka Togdheer iyo degmada Burco taliyayaasha xabsigaasi madaxda ka ah waxaana ay guud ahaanba ka dareen celiyeen hadalka Khadiija iyo wixii ay soo martay inanta aad baan ugu mahad celinaynaa waxaanu leenahay ku soo dhawow dalkaagii xabsigu waa qayb ka mid ah guryaha xasuusta uga mahad celinaa Khadiija mar labaadka waxay la soo kulantay iyadoo maanta jeelkii 30 sanadood sidoo ahaa saaka dib habayn iyo dibdhis weyn ka socoto iyadana ay ballan qaaday inay ka qayb qaadanayso dibdhiska xorriyad baa la helay Khadiija sida taliyuhu sheegay xilliga aad jirtay ninka jeelka la geeyaa wuxuu ahaa nin aan cadaalad helin waxaan halkan Ilaahay baa mahad ugu mahadnaqaya Khadiija Axmed Yoonis oo dhagax tuurkii koodii May 1992 dhagax tuurkii u horeeyay dalka Soomaaliland ka dhaca ardaydii lagu xidhay jeelka Burco ka mid ahayd iminkana dibadda ka soo noqotay oo xasuusatay meeshii beriga lagu xidhay geysayna ariga maanta loo qoliyo maxaabiista ku jirta jeelka Burco aad baan ka gobol ahaan ugu mahadnaqaynaa waa Sabri TV-ga qaranka Soomaaliland Burco